marka hore waa inaan islaamo walaalaha qaaliga waxaan idinku salaamay salaamullaahi calaykum naxariis iyo nabadgelyana dushiina ha ahaato. waxaan maanta inii wadaa hadiyad qaali ah oo duco ah. hadiyadan haddaad ku ducaysato ilaahay dhib kuma tusi doono. ilaahay wuu kaa foodanayaa qabriga, naartiisa, cadaabu naarka, gafafka, dhammaan oo ducada looga ducaysto. wax kasta oo xumaana oo kusoo mara iyo wax kasta oo noloshaada adduunyo iyo tii aqra intaba ducadana waa mid soo koobaysa. ducadu waxay leedahay allaahumma innii acuudu bika min fitnati nnaar wa cadaabi nnaari wa fitnati alqabri wa cadaabi alqabri wa shara fitnati alqaniyi wa shara fitnati alfaqri. اللهم إني أعوذ بك من شر الفتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء ثلج وبرد ونق قلبي من القضايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وبعد بيني وبين القضايا كما عدت بين المشرق والمغرب. macnaheeduna waxa waa ilaahayow waxaan kaa maangelayaa qabriga naarta fidnadeeda, waxaan kaa maangelayaa cadaabta naarteeda, waxaan kaa maangelayaa wa fitnat alqabri qabriga fidnadiisa, wa cadaab alqabri cadaab alqabrina waan kaa maangelayaa, wa shar alfitnat alqaniye qaannimada sharteeda fidnadeeda ayaa ilaahayow kaa magangelayaa. haddii ilaahay maalku siiyood qani noqoto iyada naftirkooda shar bay leedahay fidno, ilaahu taasaan kaa magangelayaa. wa sharu fitnat alqabri qabriga fidnadiisana fakri waa fakri waay fakriga fidnadiisana waa kaa magangelayaa. ilaahayow inaan markuu fakri noqdo wax walba inuu sameeyo ayaa u fudud. oo qof fakriga waa qof baahan, wax kasta wuu u samaynayaa baahida darteeda. ilaahay waxaan kaa magangelayaa leedahay marka in aan qabriga fidnada fakriga ayaan kaa magangelay. ilaahayow allaahumma innii acuudu bika ilaahay waxaan kaa magangelayaa min shari fitnati almasiixi dajaal midka dajaalka ilahahay kaas oo soo baxaye aqrisamaanka ayaan ilaahay kaa magangelay. ducadan waxaad ku ducaysanaysaa in ilaahay oo qalbigaaga ka nadiifiyo xumihii oo dhan. allahumma aqsil qalbii bimaa'i salas ilaahayow biyo nadiifa qalbigayga ku dahiri walbardi ee haddana qabow. wanaqin qalbi ilaahu qalbigayga ka daahiri min alqadaaya gafafkii kamaa naqayt sidaad asoo maradii alabyalo cadeed marada cad sida looga dhaqo min adanasi wasaqda. ilaahayow qalbigayga gafafka iyo dunuubta dhan ilaahay uga dhaqo. haddii qalbigaaga ilaahay kaaga dhigo mid nadiifa oo xumaanta dhan laga saaro, waayo qalbigu waa meesha keliya ee qofka biniaadanka oo ka halaagsamo. haddii qalbigaaga aad ka xumaato ama aad ka hagaagto, ilaahay subxaanahu watacaala adiga dhan wuxuu kaa dhigayaa mid fiican. haddii aad qalbiga ka xumaatana waxaad noqonaysaa qof xun baad noqonaysaa. wa bacid beynii ilaahowna ka fogeey, waa beyni alqadaaya aniga iyo gafafka inta noo dhexaysa ilaahu kaa fogeey. oo waxaa ka dhigtaa kamaa bacidtud bayna almashriqi waalmaqribi bari iyo galbeed sida loo kala fogeeyey ilaahay rabbiyo aniga iyo qofka noo kala fogeey. oo waxa weeye isuma dhowo qorax ka soo baxayo qorax u dhac sida ilaahay u kala fogeeyey ilaahay aniga iyo gafafka noo kala fogeeyay dad leedahay. ducadan marka waxa weeye duco ka hadlaysa adduunyadii, duco ka hadlaysa aakhiro, duco ka hadlaysa nolosha qabriga, mid ku hadlaysa ee dajaal oo imaanaya. ilaahay marka ducadan haddaad ku ducaysato oo aad si nadiif ilaahay ugu bariso waad liibaanaysaa haddaad si nadiif ilaahay ugu bariso. marka waxaan idin rajeynayaa ducadan inaad ku ducaysan doontiin ood ilaahay ku baryi doontiin, ilaahina waa inka aqbali doonaa. waxaan idin rajeynayaa khayr aada u fara badan iyo raxmad aada u fara badan. qof walbaa wuxuu doonayana ilaahay ha u fududeeyo. dhammaantiin waad mahadsantihiin. salaamullaahi calaykum.